Bismillahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan ka hadlaynaa cashar yar oo ku saabsan definition-ka tarakoomada. Inagoo ka hadlayna cudurkan yar ee tarakoomada, anoo isla dadka u faa'iideyn yar wax taqaanido cilmiga. Horto tarakoomadu sidii ku qeexday WHO 2016 waxay ku qiyaastay dad gaadhaya 1 milyan 1.9 milyan in ay cudurkan u indhabeeleen qaarna aragoodu u yaraaday. Sidaa darteed 200 oo milyan oo qofna waxay ku nool yihiin dhulka ay tarakoomadu ay ku badan tahay. Sidaa darteed waa cudur aad ugu baahan in dadka laga wacyigeliyo. Cudurkan qaabka u faafaa sidee lagu kala qaadaa? Waxa lagu kala qaadaa gacmaha oo dadka oo gacmaha si fiican isaga dhaqin, dharka sida tuwaalada oo dadku iska mariyaan, iyo duqsiga ama tixsiga oo qof ku soo dul istaagay haddana qof kale ku sii dul socday asagoo wada jeermiskii. Haddaba waxaan u gudbaynaa hadda macnaha tarakooma. Tarakooma waxaa laga keenay waa ereyg ah oo loona yaqaano tarakhus, macnihiisuna yahay raf maaha smooth, jileec maaha, wuxuu ka dhigaa indhaha sidii raf oo kale oo wuxuu u yeelaa dhibco badan. Xanuunkan markii u horreysay waxaa laga helay waddanka Egypt 50 before Ciise. Sidaa darteed waxaa cudurkan loo yaqaanaa Egyptian ophthalmia. Sida xan ku cad, tarakooma waa xanuun ku dhaca indhaha waxaana keena jeermis loo yaqaano Chlamydia trachomatis serotype A, B, A iyo C. waa noocyo ka mid ah bakteeriyadan. Bakteeriyadan sida la wada ogyahay waxaa la dhahaa gram negative bacteria. Xanuunkan tarakooma waxa uu keenaa indho la'aan waxaanu aad ugu badan yahay carruurta yar waxaanu ku fidaa si toos ah iyo si dadban, direct and indirect contact ayaa lagu kala qaadaa. Mahadsanidin.